وحوي قمر عبد الله برخدله. قمر عبد الله برخدله. قد كلام برخدله ما يقهنا وحي يقهنا الهرو. أنا قبل كي ورثنا برخدله مغلا لفتيو. نفطر كي أنا بري أنا جو هرجيس شوقنا. فعثمان محمد من لا إله خير فيه. بروح لقمر عبد الله برخدله. ما سأكو صوبودان قرواد ما هتصنطاي وايا بح هراء يراهد ما أعرف قمري فانكي مياد كوشرتا ولي waxaad ahayd fanaanad waliba dadku aad u jecel yihiin oo kamid ahayd hawlada waa bari fanki ma ku jirtaa wali ma ku lug leedahay misaad ka baxday may walal waan ka baxay oo goormaad ka baxday qamaray waxaan ka baxay adigu ilaa 13 sano ka hor dibadaad ka ahayd dibadan ka ahaa oo maxaa dhacay qamaray walal wax kaloo dhacay ma jirin waxa dhacay waxa marka aanad aqoon u lahayn dawo waxa wajhi kastood ku jirtid waad wadaysaa ma ogtahay waan gartay fanka horta anigu aad dadka u jeclaa baan ahaa waayahay hase ahaatee ma ogeyn waxa iigu dhex jira maanan garanaynin waayahay mararka qaar waxaan arki jiray aniga oo suuqa marayo niikinaya anoo hadda qof weyna haye ma aanan garan jirin waxaan moodi jirin wax aniga korkayga ku abuuran ilaa wax korkayga ku abuuran ma jirana waa shaydaan haye bas adigu waxay sidii u ahaataba waxa ilaahay de marunbu waxa ku dareensiinaya sax weeye saasay tahay inta aan garanayo soonna igama tegin salaadina igama tegin waan gartay waxaan garanayaa maalin markii iiguba horeysay aan waxaa geli jiray camal shaydaanka ayaan magaalada boorama la yidhaahdaan tegnay haye oday muxuu ahaa markaa i garanayay baa hoteelkii aan ku degnay buu wuxuu yidhi waartii yareydayna sheekh cabdillaahi garweyne kuwa qayrqayriyo gashay sawt hoosta tukan maaha oo waa qamar qoftaasi waa qamar haye markaasay shamsa bakor baa waxaa tiri ilaahay khayr ha siiye oo ma ilaahay baad kala ballantay hadday tukanayso haye bas waan yaabay an waxaan waayo muxuu leeyahay sawta tukanaysa marka salaadana dee qof walba waa lagu leeyahay qamar baa tukanaysaa ka dhaadhicila baa ka dhaadhicila nacam markaa waaba markii iigu horreysoon camalu shaydaanka galay haye oo gabadh yar baaban markaa ahay waa tahay hase ahaatee salaada naftarkeeda iskama aanan bilaabine marka maxay ahayday aan seexdo baan mar walba waxaan ku riyoon jiray iyadoo lay cadaabayo layleeyahay waa taa cadaabtii oo laygu adimayo laleeyahay allahu akbar haddaanad hadda tukan waa lagu cadaabayaa subxaan allah mararka qaar waxaa lay tusi jiray cadaabaha nacam anu ma garanaya noocyo cadaaba ah baa lay tusi jiray anoon markaa garanaynin dhinaca salaada looga tago baan aabbahay allaha u naxariistay in aan ka bowsaday oo ahayd markaa faatixada iyo qulwallaha iyo naacadayna iyo oo aan markuu tukanayo allaha u naxariistay aan dhegaysan jiray yaan iskaga bilaabay waysadiina waan iska bilaabay waa aad baanan u yaraa infact markaa waan gartay bas saan sidaydu ahaa adigu camalu shaydaankaabaan galay waa aniga taa kuu sheegaya salaadi igama aanay tegin aniga oo garanaya oo markaa qamaray ma habeenun baad qaraarkan ama go-aankan gaadhay intaad isla shawrtay ood yaro khalaaweysay ayaad istiri waxaan faraha kala bax oo iska tuko iska cibaadayso mise mudday ku aad tallaabo qaadaysay wallaahi walal maye runtaa fiicane ilaahay been looma sheegi karo haye muxuu ahaa waan jeclaa soonka iyo salaada iyo alla kacabsigaba waan jeclaa xaggan kale camal shaydaankana waan ku jiray hase ahaatee mar unbaa aniga oo Switzerland baan joogo waxaan dhegaystay habeenada ka mid a anigoo berrito tu yaroo gabadhii halkaas Switzerland geysay xayaad cabdisalaam khayr allaha siiye gabadh ay walaala yihiin tu yaro dhashoo dhalashada berritoo kale raba inaan u heeso unbaan habeennimadii maxay ahayday waxaan gurigaa gabadhaa unbaan cajabay sheekh la odhan jiray allaha u naxariistee boqolsoon unbaan dhegaystay waan ka foqo waaye wuxuu ka hadlayaa marka nuuc fanka ka mid ah bas markaasaan waxaan go-aan gaadhay inaan muxuu aha ilaahayna waxa markuu kula qabanayo uu allaha boqorkii kugu garab gelaya ayaad muujin kartaa maxay ahayday ayaad dhaqaaq samayn kartaa ilaahayna wuu igu barbargalay marka maalintii habeenkiibaa iigu dambeeyey makarafoon dambe oo aan idhaahdo waan qaadaya iminka dharka noocee baad qaadataa wallaahi waxaan qaataa dhar adigu asturan oo caadiya ma qaato kuwa aad u waaweyn laakiin waxaan qaataa kuwa wax korkaaga astura iminka intii aad fanka ka baxday aad joojisay maxaad dareemaysaa qamaray
waxaan dareemayaa qof nolol cusub galaygan dareemayaa. qamaray markaa ma qoomamaysaa berigii aad fanaanada ahayd? aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad. laakiin qamaray qof aad caawa aad u jeceshay haddii uu aroosto ku dhaha qamara ii imow, maxay jawaabtaadu noqonaysaa? ma ii hees mise arooska imow? ii hees. bismillaahi raxmaani raxiim. may taas waa ka tagay run baaba leehay dee maxaaba dhib kaleba ma taalo. intii aad soo gashay Yurub haa maxaa iyana kaa yaabiyey markaad Afrika ka timid Yurub soo gashay? haddaba aan kula hadlayo mar haddaanad hoygaagii aad u dhalatay joogin wax adigu aanad garanayn baa yaa kula shaqaynaya. ma garanaysid adigu ma hilowba ma wadankaagii oo kolley de qof walba hadduu muwaadin yahay wadankiisa wuu jecel yahay. isan markaan dariiqyada marayo waxaan sarkayaa mararka qaar anoo isla sheekaysanayo oo waxa ku sheekaynayana ma garanayo. waa qamaray markaad wax iibsanaysid ama dhar ha noqoto ama wax kale ha noqotee haa maxaad ugu jeceshahay qamarhaan inaad iibsatid? waxaan u jeclahay inaan iibsado dharka adag ee asturan. dadkii aad asxaabta ahayd inaad fankaad ku wada jiri jirteen xidhiirkiinu sidii hadda? wallaahi ma xumo.